ciidamada booliska gobolka Daadmareer oo muddooyinkii u dambeeyay deegaanada gobolka ka waday howlgallo lagula dagaalamayo maandooriyaha khamriga ayaa maanta meel fagaara ku burburiyay in ka badan 430 litir oo maandooriyaha khamriga waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda degmada Oodweyne Cabdiraxmaan Xasan Cumar oo halkaasi ka sheegay xukunka maandooriyahaasi iyo waliba gaadiidkii wadayba maxkamadda gobolka degmada Oodweyne waxay xukuntay dembiilihii sidii khamrigan 430 litir oo khamriya ay ciidanka boolisku soo qabteen meel u dhow Obsiye ay maxkamaddu xukuntay dembiilahaas uu baxsaday ciidanka uu ka baxsaday waxa la xukumay isagoo oo maqan 3 sano oo xariga iyo 3 milyan ayaa lagu xukumay gaarigii lagu soo qabtay khamriga oo ahayd markii ugu horeeyay lagu qabtay gaariga maxkamaddu waxay ku xukuntay 5% waa qiimihiisa ayaa lagu xukumay uqaal culimaa u diin iyo madax tiro badan oo goobtaasi ka hadlay ayaa dhamaantoodba tilmaamay in loo baahan yahay iskaashi midaysan oo shacab iyo dawladba meel looga soo wada jeesto mukhadaraadkaasi culimadu waxay yiraahdeen waxa dhici karta qofku inuu zina iska ilaaliyo ama uu tuugada iska ilaaliyo ama bedilka dadka uu iska ilaaliyo dhiiga laakiin hadduu khamri cabo intaaba uu sameeyay intaaba uu ku kacay runtii waa hooyadii xumaanta oo dhan ka waxa yaala 430 litir oo u dhigmaayo 2 foosto iyo dheeraad oo khamri ah ka codsanaya jananka bilayska iyo wasiirka arrimaha gudaha magaaladu waxay leedahay ilaa 70 tuulo waa magaalada ugu dhistay Soomaaliland khamriguna gees walba uu ka soo galay waa ka lidii sheegayo waxaan ka codsanaynaa gaari labaad markaas xagga u baxay xagga xajsal u baxo xagan kale har sheekhiina mid bay u baahantay marka waxa la doonayaa waxaan ka codsanaynaa gaari labaad oo soo kordhisan hadii la yiraahdo dawladda ilaa madaxweynaha wana ogeysiin hadii la yiraahdo ugu dambeyntiina taliyaha qaybta booliska ee gobolka Daadmareer gaashaanle dhexe Axmed Cabdullaahi Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Daadmareer Axmed Yariye Cabdullaahi oo hadalka isaga daba maray ayaa waxay yiraahdeen dadkeenni iyo dalkeenni iyo duuyadeeba duulimaad ku ah weeye dagaalkiisuna uu ina wada haystaa annaga marka gaar buuno iyo bilisku waa shaqadii annagu u igmanayeen qaranka u haynay weeye haddaan waxa la iska kaashana waxba socon maayaan waxana ummadeenni iyo caqligeenni iyo maalkeenni waa lagu soo duulay warshadaha loo samaystay oo jaarkeenna u samaystay dadkeenni baa ku balooba gaariga qaadaya iyo lacagta lagu soo qaadaya iyo ninka wada iyo ka soo dirayba waa inaga burinayna qamarka aad arkaysaan ciidanka bilayska oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno oo iyagu muxuu ahaay habeen iyo maalinba u taagan inay la dagaalamaan maandooriyaha qamriga dadweynaha shacabka gobolka Daadmareer waxaan ka codsanaynaa inay bilayska gacan siiyaan gobolka waxa ka shaqeeya gaariga bilayska halka gaari haddii gaari kale muxuu ahaay ciidanka bilayska loo helana hawshaasi way hawl yaraanaysaa wasiirka arrimaha gudaha taliyaha bilayska waxaan ka codsanaynaa in gaari labaad loo helo ciidanka bilayska gobolka Daadmareer Muuse Salaaman Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne